duulimaadidii tooska ahaa ee Muqdisho iyo Nairobi ayaa maanta si rasmi ah uga bilowday magaalada Muqdisho waxaana arrintaas ay ka dambeysay kadib markii toddobaadkii hore heshiis ay wada gaareen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhigiisa dalka Kenya Uhuru Kenyatta. hay-adda duulista hawada rayidka Soomaaliyeed ayaa sheegtay in maanta la furay duulimaadidii tooska ahaa ee Muqdisho iyo Nairobi isla markaana diyaaradda ugu horeysay oo arrintaasi lagu tijaabinayo ay ka ambabaxday magaalada Muqdisho ayna gaartay magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya iyadoo la fulinayo heshiiska ay wada gaareen labada madaxweyne. dowladda Kenya ayaa bil ka hor soo rogtay dhammaan in diyaaradaha ka imaanaya Soomaaliya ay ku hakadaan garoonka caalamiga ah ee Wajeer si halkaasi baaritaano lagu sameeyo oo lagu soo hubiyo. Kenya ayaa hore u sheegtay in tilaabadaasi ay u gol leedahay inay kaga gaashaamato weeraro ay al-shabaab ka geystaan dalka Kenya gaar ahaan dhanka garoomada. waxaa xusid mudan in duulimaadyada ay si toos ah u bilowdeen sanadkii 2017 markii heshiis sidaan oo kale ay wada gaareen labada madaxweyne laakiin dowladda Kenya ay ka baxday. lama oga sida arrintan ay ku sii socon karto maadaama dhowr jeer heshiis ay wada gaareen dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba dowladda Kenya ay ka baxday dowladda waddankaasi Kenya. howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ayaa sheegay in dowladda